xukunka dilka ah ayaa maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ay ku fulisay Axmed Cabdi Maadey oo 28 sano jir ah isla markaana ka tirsan ciidanka booliiska Soomaaliyeed kaas oo degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose ku dilay nin la oran jiray Maxamed Cali Cabdalla taariikhdu markay ahayd 5 bisha koobaad 2016 xeer ilaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa sheegtay in askarigan xafiiskooda uu ku soo oogay dambiga ah in dil ula kac ah uu geysto qof shacab ah waxaana maxkamadda darajada koobaad ee ciidamada qalabka sida ay ku xukuntay in uu bixiyo diyada ninka uu dilay hase ahaatee waxa uu xukunkaasi ka qaatay racfaan eedeysane booliis Axmed Cabdi Maadey iyadoo dhageysiga dacwadiisana markii dambe ay u fariisatay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya taas oo ugu dambeyn ku xukuntay dil toogasho oo ah qisaastii marxuun Maxamed Cali Cabdalla Allah u naxariistay Muumin Xuseen Cabdullaahi ku-xigeenka xiriiryaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa xukunka dilka uga dhawaaqay fagaaraha toogashada taariikhdu markay ahayd 30kii bishii 7 2016 waxay maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo heestay gacan ku dhiigle X Alifle booliis Axmed Cabdi Maadey waxayna ku xukuntay dil toogasho ah kadib markii ay ku cadaatay in uu si bareer ah ula kac ah u dilay marxuum Maxamed Cali Cabdalla maanta oo ay taariikhdu tahay 22 bisha afraad 2017 waxaa lagu fuliyay xukunkii dilka ahaa wabillahi tawfiiq waa markii ugu horeysay oo maxkamadda ciidamada qalabka sida ay xukun rido tan iyo markii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu noqday madaxweynaha Soomaaliya oo isagu saxiixa qofka toogashada lagu fulinayo Abbas Xuseen Muuse SABC TV Muqdisho